kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan magacayga waa khaliiji waa casharadeenii ku saabsanaa dodge for anfinga jarmalka loogu talagalay dadka bilowga ah waxaa ku guda jirnaa qaybta labaad ee luqadda ee aad daawasho wacan caadiyan qofka markuu bilaabayo aad waxa uu baranayaa sida loo dhiso jumladooyinka yarka ah ee luqadda jarmalka sida laiskugu geeyo laba jumlo oo kala go-an iyo waxyaabo kaleetooda la mid ah qayb ka mid ah habka jumladooyinka laiskugu geeyo waxaa la magaceeda Nebensätze causal wax kale ma ahan waa su-aal lagu weydiiyey oo su-aashaas aad ka jawaabtay laakiin haddana aad sii sababeynaysid yani waa adoo ka jawaabta su-aasha haddana sabab kale usii raadinaysa inaad isticmaashid Nebensätze causal waxa u baahan tahay marka ugu horeyso Hauptsatz oo ah senteniska ugu weyn iyo waxaa kale u baahan tahay Nebensätze waxa la oo senteniska weynka ah senteniska kaleetooda oo ag yaalo Nebensätziga marka waxa uu sababeynaya marka Hauptsatziga hore oo aad soo qaaday sidaa marka u dhisid Hauptsatz iyo Nebensätze waxaa jirta su-aalo lagu weydiinayo su-aalahaas waxay ka bilaaban karaan tusaale ahaan warum, wieso, weshalb oo ah sababta iyo aus welchem Grund sabab noocee ah marka intaan lagu weydiiyo waxaa ku jawaabi kartaa laba qaybood oo kala duwan mar oo aad ku jawaabi kartid weil maxaa yeelay iyo da oo ayadana sidoo kaleetood isku micno ah oo labadooda ah maxaa yeelay marka Hauptsätziga aa ugu jawaabtid sentence dhammaystiran qaybta kaleetood waxaa marka sii sharxaysaa sababta aa usoo qaadatay jumlada meesha ku qoran si aan marka hadda si fiican ugu sii faano waxaa qaybtan hoose dirtan ku diyaariyay su-aal oo aan isweydiinayno kadibna aan isku dayayno su-aasha inaan ugu jawaabno Hauptsatz iyo Nebensätziga hadda tusaalahaan kasoo qabo warum gehst du nicht in die Schule iskuulka maanta maxaa u aadi la'daa mar walba oo warum lagu weydiiyo waa sabab waa inaa marka keentaa marka sababta aa u aadi weysa iskuulka warum weil bla 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 inaad tixdaa lagaa rabaa kabacdi wixii kale markaas kasoo hara meesha marka su-aashana la weydiiyey waxaa u kala saarnaa laba qaybood qayb ah Hauptsätziga aan soo qaadanayno iyo qayb kaleetood ah Nebensätziga oo ag dhigeeno Hauptsätziga tusaale ahaan qaybta koowaad waxaa dhehnaa ich gehe heute nicht in die Schule warum gehst du nicht in die Schule ich gehe heute nicht in die Schule Punkt qaybta labaad ich habe stark Kopfschmerzen waxaa ihaya madax xanuun xoog ah madax xanuun saa'id ah ihaya marka Hauptsätziga oo sentence caadi ah waa sentence dhammaystiran oo aanan waxba ka maqnayn kanna sidoo kale waa sentence dhammaystiran oo aan waxba ka maqnayn ich gehe heute nicht in die Schule iskuulka maanta ma aadayo ich habe stark Kopfschmerzen waxaa ihaya madax xanuun saa'id ah su-aashana la weydiiyana waxay ahayd maxaa u aadi lahaa iskuulka marka jumladan inta ku qoran iyo jumlada inta ku qoran arabnaa inaa hal sentence ka dhiso hadda waa laba sentence ama laba jumlad oo kala madax banaan oo jumlad walba si gooni u taagan marka waxaa rabnaa marka oo sababta u taagan yahay Nebensätze causalka waxay yihiin in labadan jumlad oo kala baxsan hal jumlad oo dhammaystiran aa ka samaysid marka hadhow waxay isku noqonayaa marka labadooda jumladan aan soo qaadanay inta ah ich gehe heute nicht in die Schule tan aan soo qaadanay dhibicdu way bixaysaa koma imaanayso weil sababta su-aashana la weydiiyey waxay ahayd warum maxaa dhacay waa inaa weil ama da ay mid imaadaa marka weil sababtana waa tan intay noogu qoran tahayba ich stark Kopfschmerzen habe mar walba marka oo aan Nebensätze soo qaadanaysid verbka meesha ku qoran mar walba wuxuu imaanayaa meesha u dambeyso meesha hadeertaan waxaa ku haysaa ich habe stark Kopfschmerzen kan waa baxay ich stark Kopfschmerzen habe maadaama weil soo gasho meeshaan weil ich stark Kopfschmerzen habe oo hadhow sidaan hadda marka waxay ku tahay jumlad dhammaystiran wax kale ma sameynin jumladan iyo jumladan aa isku darnay anagoo soo qaadanay weil oo iskugu xiriirinay labadooda kadibna waxayna noqotay jumlad dhammaystiran marka Nebensätzigan marka wuxuu mar walba sababeynayaa Hauptsätziga weynka ah uu sababeynaya oo ich gehe heute nicht in die Schule yani qofka wax oo ku qanca ma ahan laakiin markii aad raacisid weil ich stark Kopfschmerzen habe waa usii dhammaystirta jumladii oo tanna kaliga hadda ma taagnaa karto tanna hadda kaligeeda ma taagnaa karto waxay u baahan tahay mar walba marka hadda wax ag taagnaada oo dhammaystira jumlada sidaa marka si fiican ugu sii fahano waxaa hoos ku diyaariyay oo kaleeto tabeele oo aan si fiican u kala sharaxay anagoo su-aalo xataa soo qaadanay oo u kala saarin labada qaybood qaybtan waxaa waaye Hauptsätzigeeni qaybta weynta ah qaybta muhiimka ee waaye tanna waa Nebensätziga qaybta kaleetood oo jumladeena weynta ah noo dhammaystiraysa waaye maadaama aysan hadda kaligeeda taagnaa karin warum kannst du nicht essen maxaa u cuni lahdaa cunto
ninba ku yimid maxaa cun ladaa cunto waxaa dhigi kartaa ich kann nicht essen aniga ma cuni karo ma dhammaystiran jumladu waxay u baahan tahay wax si dhammaystir aniga cunto ma cunayo weil ich heute faste maadaama maanta aan soomanaha aniga faste waa verbka caadiga ah mar walbo verbka ama ficilka qaybta u dambeyso sentencku imaanaya haddii aa weil isticmaalaysid oo ah sababta wieso freut sie sich so saan maxay ayada ugu farxaysaa sie freut sich so waxay saan ugu farxaysaa ma dhammaystirin qofku wax kaloo kasii sugaya weil sie eine wichtige Prüfung bestanden hat maadaama ayada ku guuleystay imtixaan muhiim ahaa was wegen weint das kleine Mädchen sabab noocee ayay u oynaysaa gabadha yarista ah es weint way oynaysaa wax kale laga sugaya ma dhammaystirna weil es vor dem großen Hund Angst hat maadaama eyga weynka ah cabsi ka qabta ayay u oynaysaa gabadha aus welchem Grund bist du in Deutschland sabab noocee ah ayaa Jarmalka u joogtaa ich bin in Deutschland waxaa Jarmalka ku joogaa weil mein Heimatland Krieg gibt maadaama waddankayga dagaal yiro ayaa u joogaa Jarmalka ich bin in Deutschland keligeeda ma kugu filno weil mein Heimatland Krieg gibt keligeed ma kugu filno yacni wuxuu rabaa qofka wax isku xiray labada sentence oo dhammaystira marka labadooda waa isku baahan yihiin oo ma kala maarmaan mar walba isku xiran yihiin wieso putzt seine Wohnung sababta gurigiisa u nadiifinaya maxtaanikan putzt seine Wohnung wuu nadiifinaya gurigiisa weil Besuch bekommt maadaama ay marti u imaanayso gurigiisa ayuu nadiifinaya marka waa laba sentence oo mar walba isku baahan oo aan kada kala madax banaanayn oo mid walba mid kale u baahan yahay sidoo kaleetood maxaa jirta marka qayb oo nebensastiga soo hormarayo oo hobsasigana gadaal marayo hadda waxaa dhaanay ich kann nicht essen aniga ma cuni karo weil ich heute faste weil markaan soo gelin ka bacdi fast verb gadaala dhignay tan sentenceska caadi u soo qaadan laakiin markii hadda qaybta kaleetood aad tagno oo aad kala bedelno hadda nebensastiga haddaa dhinaca noo ahaa waa soo wareejin hobsasinta u wareejin nebensastiga marka weil noo ahayd hadda daa waa soo qaadan kartaa labadaba waa isku mid waxaa doontaa soo qaadan kartaa da ich heute faste maadaama heute maanta soomanahay kann ich nicht essen ma cuni karo maanta hobsastiga markaan ka bilaabayna sentenceka wuxuu ahaa ich kann nicht essen weil laakiin hadda maadaama qayb dambe noo imaanaya waxay noqonaysaa kant ishta waxay galaysaa qaybta labaad ee sentenceka da sie wichtige Prüfung bestanden hat maadaama imtixaan muhiim ay ku guuleystay freut sie sich so haddaa waxay ahayd sie freut sich so hadda waxay noqonaysaa marka hobsastiga gadaal keenayno hadda waxay noqonaysaa marka hobsastiga gadaal keenayno freut sie sich so yacni verbka hadda soo hormaraya siidana waxay galaysaa qaybta labaad ee sentenceka da es vor dem großen Hund Angst hat maadaama eyga weynka cabsi ka qabto weint es way oynaysaa oo verbka soo hormaraya markan da mein Heimatland Krieg gibt maadaama waddankayga dagaal ka jiro bin ich in Deutschland taa darteed Jarmalka ku imaada da Besuch bekommt maadaama uu marti helayo oder weil Besuch bekommt maadaama uu marti helayo putzt seine Wohnung wuxuu nadiifinayaa gurigiisa marka meeshan waxaa ka fahmeen waxay tahay markii hobsastiga oo inta yahay oo nebensastigan inta yahay in sentenceka caadi uu noqonayo tusaale ahaan ich kann nicht essen markii hobsastiga oo gadaal dambe imaadana oo isku bedelayo kann ich nicht essen oo ishta marna oo markuu inta joogto ishta ee bilow ka bilaabanayso marka inta imaadana ishta ee soo dhexgalayso qaybta labaad ee sentenceka isku day inaad tusaalooyin badan samaysid inaad erayo badan raadisid inaad kaliga uibin badan samaysid haddii aad wax su-aal qabsid ama haddii aad qalad ku aragtid mar walba ila soo xiriiri kartaa intaa kuligaan kulan kale ka xiis badan kulmi doona anigo khaliiji ah fi amaanillah